الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أبا أذيك ميا ها بواني وايه هاي ايه بو ساتها هاي قاوة ورسي تكلا حل في عنا بي ما تو because حالي دن مريونا يرون ما أهد وحباسس يعيجناي bisinka cilada weeyaan waxaas maxaa kuu diiday reerkiina inaa soo dhex gashid oo ciladan kugu ooday أبا مدي إن ريرك صور حكلينا مع منا شراي إذا هي عاشي ما نسي وابو باهنا هذا أنا صور حكلي كريم ما هنا حتى وحنا باهنا إن قرآن لسارو abo anaga waxaa ma diidayno inaa reerka soo dhex gasho iyo in kalaba oo midda labaad gabadh waxay kaa sheegaysa waa barunbe abo hal qof ay isfahmi weyseen noloshaa dhan ha u baabi'in annagaa walaalkeen tahay annagaa wax kasta noo tahay إلهي ما كان قاضي وحن كدم الله ولا له وارن الدنيا ذيك الوحوي ما مر بعد هذين كذا هيسته تكله قال السوري عاشو كل شيء كيسنا مي ما حبته يا رويها عنن midda labaad gabadha hadii la soo doonayo hadii kalaba adii lama laga soo doonayo wax ka sii adi marka warkayga dhig war badan iska dhaafti shaydaankan iska naartid xaafadda iga daba imo laakiin aba hal su'aal ku weydiinay qofki aan kuriyoonayo cijinayo ahaan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا شيطان كسكنا أعوذ بالله سنة هبين كنا أذكار كسيحه maxaa ka xun ilama wanaagsanidee waxba igama xun marwa laakiin hal cabasho ayaan kuugu imaaday dhalinyaradan isla shaqaynayno waxaan jeclaan lahaa inaa iga bedeshid qaybtooda qayb kale aad iga bedeshid maasha allah maxaa tiri oo dhalinyarada maxaa kaa galay ma shaqadaada kuway kaa tid adig marwa waa iga codsay isma fahmayna dhalinyaradaas anoon way xun yihiin dhehaynin way fiican yihiin dhehaynin waan jeclaan lahaa qaybtaas inay iga bedesho qayb kale aad ii bedesho ridwaan qof shaqaysanayo mateed aniga walaasha ayaa kugu xushmay maahine qof shaqo la siiyo mateed marwa zakiya mar walba inaan shaqaysiisa waad igu handadaa mar walbana waxaad igu hanjawaadaa inaan ahayn qof shaqo la siiyo marwa haddeenba adiga kaa go-neen oo si qalbeen iyo ixtiraam leh aadan shaqadan ay siinin mar kale waan kaa codsanayaa in la siiyo warqadeeda ruqsadda ha haatee miyaan qof bini aadan ahayn oo baahi u qaban karta inuu xamaasho way dhacdaa in xiriirin dhex maray laakiin xiriirkeena burburay ma quseeyo shaqada iyo waxay naga dhexeeyo fadlan aa ixtiraamno shaqada naga dhexeyso kaala horta xagee ku hoyataa maxaad igula muuqataa qof qaadiraysan oo balwad leh gadaashay ma balwada baratay maya marwo balwad ma baranin laakiin mararka qaar ayaa jiifka laygu dhibaa qola ayaa habeenkii igu soo safaado weliba hurdada ii diido way fiicnaan lahayd haddii ay cadaaladda hadlayso ilaa cadaaladda ka hadlayo qof walba dan ayaa ugu jirto laakiin mooga meel aad igala dagaalsan tahay ma xiriirkeena hore dhammaaday baad weli daba socotaa taasna calaf iyo qadar un bay ahayd waxba kama bedeli karin
mise sabab kale ayaa jirta oo weli ay daba socotaa? mararka qaar qof wanaagsan ayaa qof xun noqdo, qof xunna qof wanaagsan ayuu noqdaa, laakiin cadaaladda ilaahay agtiisa ayay taallaa. Marwa waxaan ka hadlayna hadda waxaa ma bahayn. Adigoo mahadsan ma ii bedeli kartaa xafiiska qaybta aan ka shaqeeyo? Ridwaan, adiga oo mahadsan shaqadaada ma qabsan kartaa? hal mid iiga jawaab. labadooda maxay isku daba socdaan? ma garanayo waxay isku daba socdaan. waxaan u maleeyaa inuu xiriir hore ka dhexeeyay. maxaa ka ogaatay inuu xiriir hore ka dhexeeyo? teeda kale sawirada markaa ka qaadaysiyaa kuu dira. Marwa Zakiyo. Marwa Zakiyo ulajeedada leedahay kugu dirta maxaa sawirada? Ay fog ay tirsanaysaa. baxar xunna way la rabtaa. mararka qaar waxay u dhahdaa ninkan waa ninka dilay walaalkii. uu dilayaa? oo muxuu dilay? ta kale ku weydiiyay arrinta maxaa ka ogtaa? Marwa dulmiga ma fiicno. ani arrinkaas waxaa ku ogay malaha. waxaa ogay in Ridwaan la dulminayo. Ridwaan idila? mid ku weydiiyay. ma intaas u daba socdaa mise wax kale kala dhaxay? fiiri Marwa, Ridwaan waa daacad. laakiin waxaa soo socda arrinka weyn. qoftaas waxay damacsantahay wax halkan lagu soo koobi karaa ma aha. oo adi maxay ku adeegsanaysaa? teeda kale arrinka maxaa ka taa? Marwa Zakiyo, ana og inay xun tahay haddana saaxiibtay tahay. afkeena waa isku ammaana. laakiin Ridwaan والله waa wax adag kala doorashada danta iyo jacaylka. halo Ridwaan. xagee joogtaa? gurigayga joogaa. hadda ayaan shaqo isku diyaarinahay. hee wax dhiba miyaa jiro? jireen inaan ku arkaa u baahnahay miyay imaan kartaa? hay waayahay. intaan shaqada aadinayaan ku soo maraya. ii soo dhaqso Ridwaan, meel kale ha ku laaxanin. meel kale? anaada kuu soo socda maa meel kale u leexanayaa. waxa iiga kaa muhiimsan ma jiraan haddana ku imaanayaa. Asalaam Ramlo. intaa qaada Ridwaan. Ramlo, saaka waxay ii balamisay subaxnimadeeda qurxin rabtaa soo maaha? haa maalintaada waxna waa ka qarxin raa waxna waa ka haleyn raa. laakiin Ridwaan mid uu keydiyaa. Marwa Zakiyo maxaa kala dhaxay adiga? mar walba in la weydiiyay laga mid yahay. anna inaan ka jawaabo ma ka daalay. hadiiba jawaabta ay noqonaysa eed bixinta, aniga Marwa Zakiyo wada shaqeyn baa naga dhaxayso. wax kale oo naga dhaxay ma laha. maxaa soo cusboonaaday? Ridwaan, sax ku weydiina iga jawaab. xiriir iyo waxas ma aha. wax kale oo qarsoon ma idin ka dhaxeeyo. Ramlo waa waalatay markan. xiriir, shukaansi, wax kale oo qarsoon waan kugu wareeray. wallahi ma aqaan meelaan wax ka bilaabay iyo meelaan u dhameeyo. maxaa kale oo naga dhaxayn karaa iyada? xiriir hore ayaa naga dhaxeeyay, wuuna dhamaaday kaas. wax kalena hadda ma jiro, kaliya wada shaqeyn baa naga dhaxayso. gabadhaas waa gabadha mishaarka qaato. waan ku baryayaa fadlan siyaabaha qaldan wax arkaysa naga daa. qoftaas meel nagama jirto, reerkana kama dhaxbaxsano. adigana caadi ma teed wiilo. maxaa ku daray Ridwaan? waxba iguma dhicin.
ridwaan caadi mateed dhakhtar u tag fadlan saan aniga caadi igula mateed dhibaatadana ma garanay meel kaa soo gaarto ilaah kaa yasiro waa mahadsan tahay